nimanka hadda dhaqanka iyo nabadoonnada iyo simada ah oo laascana aaday dee waanu ognahay waa intii xamar lacagta ka qaadan jiray fooliyo bagaada garowna way ku jiraan madaxweynaha Puntland waa nin caana ummadoo dhan baa taqaan waa la og yahay warka jimcaalna waxba yeeli karo ninka xun baa wuxuu is yiraahdaa hadalka xun hebel ku dil بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وضعنا عيسى عدور معادنة شركة جائزة عن قلبت قبطي قلبت طارق وطهي شن يطوانكي بشي كواد وكون إيا اللحية لباطن شركة وحوك السابية هاي صدح أجندة بولي هاي من وصومالي لان من نوا صوماليا من نوا بوتلان كان Somaliland baan ugu hormarayaa Somaliland waxa laga sheegayaa waa goonay annagu haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed warka ma qabno shacabku waa isku dan waa isku dad waa isku diin waa isku dan waa isku dad waa isku diin waa dad ehelha wada dhashay wuxuu kala yahay ma jiro niman siyaasiyiin uun baa wax kala riixanaya siyaasiyiintana waxaan leeyahay dhibta ka daaya dadka Soomaaliya kala irdheynina shacabka isku dirinina Soomaali mid weeye Somaliland waxaa laga rabaa oo qorshaheedu yahay dad Soomaaliyeed weeye saasna lagu kala go'i maayo xilka Soomaaliya ha u tartameen xilka Soomaaliya cid gaar ah ma leh xilkay wax ku leeyihiin madaxweynaha Soomaaliya ha dooneen kan ra'iisul wasaaraha ha dooneen dad Soomaaliyeed weeye awalba xildhibaanada iyo wasiirada waxbay ku lahaayeen laakiin talaabada kor u sii qaadeen ha ka qayb galeen doonida wasiirada aw doonida madaxweynaha iyo doonida ra'iisul wasaaraha soo dhawaada Soomaalida tihiin hana kala irdheynina siyaasiyiinay idinka intaas aan kaga gudbayaa Soomaaliya Xasan iyo tiimkiisa waxaan leeyahay Xasan oo madaxweyne Soomaaliyeed baa tahay subax baa lagu doortay madaxweynaha baa tahay kuma nacsanin kuma diidanin inaan ma siyaasiyiin wax isku haysaaniin waan ognahay siyaasiyiintu in la kala irdheeyo ma aha waa in la soo dhaweeyo madaxweyne waxaan ku leeyahay soo dhawow midnaba Soomaaliya raadi Somaliland meel ka aadamayso Puntland meel aadamayso Jubbaland meel aadamayso ummadu wada dhalatay ummada waxa isu keeni kara kubaaq shir loo wada tashaday oo loo wada dhayahay oo lagu doorto doorasho la isku raacsan yahay qabo iyada Soomaaliya isugu imanaysa cid allaale iyo cid doorasho rabana soo dhaweey dadka ugu yeer magaalo madaxda baa joogtaa ugu yeer dadka ugu baaq in la isu yimaado haddaad adigu doorashada ku soo baxdeen hadda madaxweynaha baa tahay walba waa lahayd waa lagu shaqeynaya xoogaa irdheyntii kala jidana umada kada umada albaabka u fur isu soo dhaweey mucaaradka ninka kuwa ah cayrin kan ku ah ayidka kaliya jeebka ha gashan umada u fur albaabkaaga doorasho loo dhan yahay ku baaq saasa Soomaaliya ku midoobaysa laakiin halkan lama iman karo iyo annaga ale iyo hadii Alexander rabo baan wuxuu yeerinayaa iyo waxay Soomaaliya si kala dilaysaa waa waxa Soomaaliland halka gaarsiiyay Jubbaland iyo Puntland ay ka cagataaleynayaan kada madaxweyne kada ummadda nabadgelyo ugu baaq doorasho ugu baaq ismaatan ugu baaq in la wada tashado ugu baaq ba arintan kaliya aad wadido Soomaaliland go'imayso ummaddu waa kula wada qabtaay u baaq ummadda imaada dheh doorashada laga soo qayb gaadhay qaabkee u tashanaayo doorasho u qabanaade saasa Soomaaliya ku midoobaysa Puntland markaan soo gudbina Puntland waa Puntland waad ogtihiin Puntland horta dadkeeda waxa mucaarad ku ah ragii siyaasiyiinta ahaa oo ku soo barbaaray oo ku soo ilmo korsaday oo guryaha ka dhistay oo lacagta ka helay way nimanka ama Daacish ku jireen ama xamar ka soo socdeen nimanka Puntland u digdigleynaya nimanka weeye oo hadda idinka ku soo ilmo korsaday oo dhowr iyo 20 gaal soo nafceeda soo cunayay hal la dumiyo يعني dadka shacabka baan yeerin anagu mushaarka kama qaadano shacab baan nahay nabadgelyo aan ka helay khayr baan ka helay waxaan ka helay dhaqaale waxaan ka helay nabadgelyo iyadaana deeqda laakiin dadka nafceeda leh idinka weeye war Puntland ka daayo waxa ku wadaanay Puntland madaxweyne leedahay madaxweyne ku xigeen bay leedahay waa degan tahay waa dawlad waad ogtihiin waagii dawladda Maxamed Siyaad Barre gaari waa baa loo jeedo deegaankeena lama soo gaari jirin haduu maamulkaasi dhacay Puntland waa isku tashatay Puntland bay la baxday maamul bay dooratay maamulkii ummadaynu ku soo gaaray waa la soo simanay waa kaga dheeraanay maantay New York bay garow u waqtay magaalada madaxdeedii magaalooyin kalena waa la mid barwaaqada iyo nabadgelyada iyo khayrkaas aynu ka helay
ninka marka barwaaqada aan ku xamdi naqayn oo qof soo hubaynayo ama qof dabada ka soo wado dee intiyada kale u jeedo kulli anaga iska qabanayno mana yeelayno qof xumaan Puntland ku wada Puntland baan u dhalanay waa ku barwaaqownay wanaageedaan u taaganahay waana ka shaqaynaynaa nimanka hadda dhaqanka iyo nabadoonada iyo simada oo laascana aaday anagu siyaasad uma dirsan siyaasadda Puntland waxay leedahay maamul madaxweyne leedahay madaxweyne iyaga siyaasadda noo matala iyagaan u daba fadhinaa waxaan oo yeeriyaan baan qaadanaynaa wixii meeshii difaac yiraahan baan difaacaynaa iyagaan ka sugnaa ismada marka dhaqan baa lagu ogaa khayr Allah siiyo badankooda dhaqankooda way ku sugan yihiin ninkii dhaqanka ka dheereeyana ninka dhowanayo dhabarka muuqdo waa la warkaa weeye ninka dhaqan ka dheereeyay oo meel kale wax u wada hadda ismada qayb hadda laascaan jawaar ninkii wuxuu yahay habar jeclo Muuse waa ka anoo awal baan sheego waxaan waa dheeraynaysaa dheeraynta joojiye haddana ummadda wada aragta ha joojiyeen waxa aan loo dirsan wixii loo dirsaday baa dayacan kii loo dirsaday oo dhaqanka ahaa ka shaqeeyeen nabadoonada meesha aadayna ee waanu ognahay waa intii xamar lacagta ka qaadan jiray fooliyo bagaada garowna way ku jiraan yaa xamar lacag bay ka qaataan marka ninka gurigiisa duminaya oo meel kale xoogaa uu ka qaato madaxa u ruxaya waa uliidnimo weeye war joojiyo waxa wadaanin war waalayaal oo Puntland wayna deeqdaa oo Soomaaliya wayna deeqdaa Soomaaliya midnimo aan wada shaqeyno Puntland aynu de waa meeshan ku dhalanay waa meeshan ku dhisanay waa meeshan ku dhaqanay waa meeshan ku barwaaqownay nin maanta waa duminaya iyo khalad baan ku wadaana laga yeeli maayo aad iyo aad baa maasanteen waxaan kaloo ku darayaa qodobka afraad yahay imaaraadka oo Xasan Maxamuud yiri ha ka bixeen meesha yaano imaaraadku shaqo badan buu noo qabtaa difaaca wuxuu nagala qayb galay calmiskaad difaaca intii ugu badan buu ku qayb qaatay xasan iyo tiimkiisu waa diideen difaaca inay ka qayb galaaniin waana madaxweynaha Soomaaliyeed waxa inaanu qodqodno galabta intaasana u kaliftay waxaana u kalifay ninkii difaaca dalka difaacay inuu xasan oo rabay in Puntland la qabsado oo la baabi'iyo inuu yaa dalka ka baxo qortaade waxay ogtay dad shacab aan lahayn oo indhale oo xarkaya xasan uu doonayay Puntland in la dumiyo hadal horna waa u horeeyay oo ahaa 24 sano waxay dhisayeen 24 sano waxay dhisayeen 24 sano aan ku duminayaana horeyna waa looga hayay haddana waa u jeedaani ninkii difaaciya wuxuu leeyahay habuxo warkaasi nama qabto war madaxweyne ma aha Puntland Soomaaliya isu keen xasan ha kala irdayn ha kala fogeyn isu keen doorasho u qabo raggii doorashada doonayay kulli agaarkaaga joogaani doorasho loo dhayahay 4 bilood baa ku haray 4 bilood ka shaqeey hadaa 4 bilood ka shaqeyn weydid waqtigu waa ka dhamaanaya anu runta ku sheegay madaxweyne baa tay kumana nabci 4 bilood baa jaanisaysataa war 4 bilood waxa ka shaqeysaa doorasho loo dhayahay haday 4 bilood ka dhamaato de madaxweyne ma tihid maamulada kale waa dhisan yihiin meeshii dawladda ka dhisatay baa la aad isugu tagayaa waxaad yeeshaa doorashada qaba madaxweyne qabo siyaasiyiinta u yeer madaxda kala tartamaysa u yeer dadka la hadal dadka soo dhaweey 4 bilood ajaaniska ka faa'iideyso warkayga aanu intaasaan ku sababayaa imaaraadna ninna ka yeelimayno hayda ka baxo waa ninkii nala shaqeeyay waa ninkii wax nala qabtay waa ninkii caalkeed cashiisa daacishka nagala saaray وهدنا هي اللي هو ونوقف تاني واقع ربنا سود وهذا Soomaali هلا يسكنه وركين أنت هسه مسوق بقبيلية شيء الجمعة وركي سيدي أنا وحن مودي وح يوتيوب كلا صار يو المسؤول وركي عن مقلي وروك هلا ما هين إنه يرى هذا سوى حياة عادات إنه يجرو ما دام عاد ويديسي وح وركاسها وح مدحونا نوافرني قبل كاس أنا وحبك الشيء ما يصور وادت كيجي وحبا أنا جسور وجيسن بيو لكن وادت كيجي مدحوينها بلان وننعانا ومدورن باتقان ولا أجي هاي ورك جمعنا وحبا يري كرو نينكو حنبا وحو يصير هذا الكحون هبل كدل وركاس مدحوين دني وحبا يري كرو مدحوين دني ومدحوين بلان بدا يحسوا بحي بلا المقرشو وننعانا ونن أمد الصومالي ربا إنه يسكنه أنا إستجا ندبت تاني مدحونا نوع جمعنا إستجا مدحونا هو هذا نينك رجيس عاينا أني ولا هو أوجيه نينك رجيس وناجيانا أني ولا هو أوجيه نينك بركانتك بينه فروا عليه نينك كفرنا أوج كو كفرنا وأوجيه كو كفرنا وأوجيه
marka Jimcaale hadalkaasi isagu wax yeelaya cid kale wax yeelaya ma jiro aan nin dhalinyaro oo saaxiibkaygu ahaa oo dadka reer Puntland kamid ah hadalkaasi hadal qabto ma ahayn xaalna ha ka bixiyaan leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. adeega deposit ee bangiga Salaam waa adeeg uu qof kasta oo macaamiil oo isticmaala adeega sahal ee shirkadda isgaarsiinta Golis uu ku shuban karo ama dhigan karo lacagtiisa akoonkiisa bangiga Salaam isagoo aan tagin xarumaha bangiga Salaam. haddaba si aad u dhigato lacagta akoonkaaga bangiga Salaam ugu horeyn garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga xidig lacagta afargees sidoo kale si aad ula baxday lacagta kugu jirta akoonkaaga bangiga ugu horeyn garaac xidig 887 xidig akoonkaaga bangiga Salaam dig lacagta xidig binka akoonkaaga waxa adeegan adeegsan kara ganacsatada iyo meheradaha waxayna ku wareejsan karaan lacagtooda akoomada sahalka marka ay ka buuxsamaan